Soomaaliya ayaa waxaa looga fadhiyaa waxqabad badan oo ay u samayso bulshada Soomaaliyeed kadib markii madaxtinimada Soomaaliya uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa fariimo kala duwan oo ku saabsan hambalyo ay u soo dirayeen dowladaha ay dariska yihiin. Baqan ayaa waxaa dirayo Boqor Xasan Sheekh Cabdi oo ah boqorka beelaha Jareerweyne oo ku sugan wadanka Mareykanka ayaa wuxuu fariin baaq u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo bulshada guud ahaanba ku nool dalka Soomaaliya. Inkastoo beelaha Jareerweyne iyagu ay sheegeen mas'uuliyiintoodii in xilligan Soomaaliya looga fadhiyo waxqabad badan aysan noqon diin dhaanka loo diray. dawladdu waxaan u sheegayaa haddaan nahay qoomiyadda Soomaali Bantu ama Jareerweyne waxaan dawladda baaq ugu diraynaa anaka waxaan nahay dad oo wadanka Soomaaliya u dhashay oo wadan kale aan qaban wadankooda Soomaali u yahay. dawladdu say og tahayba waxaa soo maray wadankan ama dawladaha kaleba say og yihiin dadweynaha kulligood saddex gumaysi ayaa soo martay. gumaysiyaalkaasna anakoo maqan ma dhicin, anakoo joogno ay korkaayin ku dhacay oo waana galnay, awowyaalkayna waa galeen, waa la gumaystay. laakiin haddii saddexda gumaysi taliyaan oo 2 jeer noo soo noqday iyo hal mar oo Ingiriis noo imaaday intaanba nala gumaystay, wadanka nagu gumaystay, waxay ku tusaysaa wadanka inaan wax ku leenahay. tii kale labaad weli khaasatan ay noo daran tahay gumayska in aanaka u darneen oo tusaale hadda idinka soo siiyo sida oo kala asayle labadiisa dhinac oo buurta ah waxaa ku jiro oo ka buurin waa dad oo nool oo la geliyey, magaciisa asayle loo bixiyey. marka taasna waxay ku tusaysaa markuu talyaana saa sameynay dad wadankooda ay leeyihiin xoog laga qaadan rabo inay nahay ay ku tusaysaa. marka dawlad kasta oo imaato raja ayaan ka lehen koran u fiirinayni 60kii ilaa hadda laga soo bilaabo dawlad alato kumeel garaha ahaato ama dawlad caadi ahaato oo isku raacsan yahay koran u fiirinaynay wax oo hadda aan ka helnay oo soo dhaweyn ah ama iskala aqoonsi ah ma jirto. marka dawladdan curdunka ah oo hal bil jirsatay waxaan u rajaynaynaa inayna aqoonsato oo xaqayn ayna siiso oo sidii dadka ay ku jiraan aan ku jirno dadka la aqoonsaday inaan noqono. marka dawladda waxaan u sheegaynaa ee dawladaha kale oo gobolada waxaan u sheegaynaa waan dulmanahay haddaan Soomaali Bantu aan nahay, dulunka inaan nagala saaro oo nala soo dhaweeyo ayaan jecelnahay. dadweynahan waxaan u sheegaynaa anaka haddaan nahay Soomaali Bantu waxaan nahay dad oo diinta wadaago, dalka wadaago, muslimnimada wadaago ayaan nahay oo hal meel degan. wadanka waxaa loo degan yahay jile iyo jareer. marka dhibana ayaan nahay oo intaas sano aan ku rafaasanahay wadanka, dadweynaha wax ka hadlaayo iyo wax oo sheegayna aan lahayn. waxaan ka codsanay dadweynahan inay noo fiiriyaan dhibka aan qabno oo aan ku rafaasanahay, aan ku dandarsanahay, gaajada iyo dhibaatada iyo awaaraha jiraana aan ku rafaasanahay. taasna inay dadweynaha ay noo qiimeeyaan ayagii iyo dawladaba inay wax noogu qabtaan ayaan u baahannahay. khaasatan maamooyinka waxaan leeyahay dad ilmaha oo la dilo oo 20 jirka 15 jirka cudur ninkii ku dhacay ayaa wax laga weydiiyaa. marka heestamada adanka marteen maamooyinkan oo Soomaali Bantu way mareen, foosha way mareen, wax kasta way mareen, dhibkii aadanka aad gasheen ayagna ay galeen. markii wiil oo 20 jir ama 15 jir dandare loo dilaayo asoo waxba galabsinin inaad ka xanuunsataan, aad ku qaylisaan ayaa loo baahan yahay. waayo dhibku waa soo wada marteen, maamadaas dhibka galayso idinka isku mid tihiin, waa inaad wixii xaq aad ka hadashaan ilaa maamooyina tihiin. waxaa kaloo ku darayaa culamaa u diinka waxaan leeyahay waxaad mislaysaan diinta ayaad madax u tihiin, xaqa ayaa la rabaa inaad ka hadashaan, dadka inaad wax u sheegtaan kan qaldan. laakiin haddii Soomaali Bantu 60 ilaa hadda haddii la dhaco iyo haddii la dilo iyo haddii la kufsado
wax culamaa u diin oo ka hadlaay male marka waxaan u malaynayaa maadaama culimo aad tihiin waxaan u malaynayaa inay qur'aanka ay ku jirto aayado oo banaynayso in jareer la dhaco oo la dilo oo la kufsado saasaan u malaynaa bal aayaddaas waa idinka sugaynaa inaad noo sheegtaan anaga waa ku wareersannahay aayadda oo anaka banaysay in nala dhaco oo nala dilo oo banaysayna culimadaan ku sugaynaa laakiin culimmada ogaada aakhir in lidin qabsan